sida in dhacdadii 19 Febraayo dhacday dadkii ku lug lahaa taliyaashii ciidanka arrintaas ka dambeeyay laga qaado tilaab madaxweynaha mudxeedkiisa dhamaaday oo wareejiyo mas'uuliyadda amniga oo ku wareejiyo xukuumadda sidoo kale saaxada siyaasadda in la furo oo dadku si xor ah ay siyaasadda ama activity siyaasadeed u samaysan karaan xilli doorasho maadaama lagu jiro inkastay masaaxada siyaasadda markasta ay furnaataba ay sax tahay iyo mandate-ka madaxweynaha hore ee xilligiisa dhamaaday waxa laga yeelayo iyo sidoo kale arrimaha la xiriira kaalinta midowga oo ku yeelanayo hadallada doorashooyinka la xiriira ee shirarka loo madlan yahay intaba waxaan isku daynay hal kasta oo suuragal ah inaan wada gaarno taas laakiin laguma guulaysanin nasiib darro xilligaana aragtaanoo 3 subaxnimo lagu dhow yahay waxaan u soo jeednay in arrimahaas xal laga gaaro si hore loogu socdo looguna aqoon in la fududeeyo wax kasta oo suuragal ah ee dalkan doorasho oo dhici karto dadaal kasta oo midowga bixiyay iyo tanaasul kasta oo sameeyay runtii taas bedelkeeda anaga maan arkin waxaan aad ugu xunnahay in dad go'aanka ayaga iska leh oo dastuuriyan iyo siyaasiyanba u leh oo aan cawado dhan la fadinay inay muuqatay go'aanka ayaga inaysan lahayn waa nasiib darro u soo hoyatay taariikhda siyaasadda Soomaaliya runtii waxaan jeclaan lahayn inay kalsooni isgeliyaan oo ay aaminaan inay talada iyo go'aanka dalka siyaasadeed ayaga leeyihiin laakiin qoraal kasta ama afgarad kasta oo gaarno waxay ahayd in laga soo ansixiyo meel kale oo shirka ka baxsan taasaana keentay inuu saacado qaato shirka oo dib loogu celiyo waliba iyadoo fariin qoraal ah taasaan u dul qaadanay saacado u joognay ciddii fariin qoraalka soo diraysana ay diiday in hore loo socdo ciddaasoo aad garanaysaan oo ah madaxweynaha xilkiisa dhamaaday oo gadaal uga dhegan dadka aan wada hadalka kula jirnay waa nasiib darro runtii aad iyo aad u xun una soo hayay taariikhda siyaasadda Soomaaliya iyo dadkii aan wada hadalka kula jirnay oo ahayd inay si sax siyaasadda u matalaan si saxana arrimaha doorashooyinka iyo wada hadallada iyo dhacdadii 19 Febraayo ay wax uga qabtaan oo ay matalaadeeda iyo maqaamkeedii miisaankeeda ay yeeshaan laakiin taas ma dhicin sidaas daraaddeed wixii mas'uuliyadda ay dalkan ka xumaada ayaga qaadaya mas'uuliyaddeeda waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.